wiilka maalqabeenka ah ayaa shaqada ka eriyey shaqaale uu ku arkay isagoo hurda inta uu shaqadu socoto. laakiin isla daqiiqadii xigtay war degdeg ah ayaa u yimid, saamiyada shirkaddii ayaa si lama filaan ah hoos ugu dhacay si xun. shaqaalihii oo dhan way argagaxeen, mana jirin qof xal heli kara. markaas ayuu ogaaday run naxdin leh, ninkii uu eriyey wuxuu ahaa khabiirka dhabta ah ee ganacsiga saamiyada, qofka keliya ee shirkadda badbaadin kari lahaa, ninkaas oo aabbihiis mar hore uga warramay. ninkaasi wuxuu shirkadda ula joogay keliya inuu abaal u gudo, maadaama 5 sano ka hor si been ah loogu eedeeyey khiyaano suuq saamiyo, taasoo ka dhalatay khiyaamadii saaxiibtiisii. caddayn la'aan awgeed waa la xukumay, xabsi ayaana loo diray. waalidiintiisna xanuun bay u jiifeen, balse madaxweynihii shirkadda ayaa badbaadiyey, isagoo bixiyey kharashaadkii daawayntooda. intii madaxweynuhu xanuunsanaa, ninkaas ayaa si qarsoodi ah u maamuli jiray ganacsiga saamiyada, wuxuuna shirkadda u soo hooyey balaayiin dollar. laakiin markii maamulka loo dhiibay wiilka madaxweynuhu dhalay, wuu quursaday, mana rumaysan kartidiisa. xitaa wuxuu keenay khabiir ajnebi ah oo noqotay isla gabadhii hore u khiyaantay. go'aankiisa kibirka ah ayaa shirkadda qarka u saaray burbur. markii ay xaaladdu faraha ka baxday, qof walbana ogaaday in hal qof oo keliya jiro oo badbaadin kara, ninkii la quursaday ee la eryey. ugu dambayn, markay khasaaruhu sii bateen, waxay ku qasbanaadeen inay raaligelin iyo mushaharkiisii bixiyaan si uu mar kale shirkadda u badbaadiyo.